Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janaalkeena Xamdi Xarago. Insha Allah maanta waxaan idinla shirgaran doonaa fiideo aad u yar. Fiidiyaas wax badan ma aha, waxa waaye baasto brown ah. Marka waxaa laga sameeyay brown rice ama bariiska kiisa brown ka ah ama qaxwa u eg oo kale. Sababta looga sameeyo waxa waaye bariiskaas markii bariiska cad loo barbar dhigo waa uu ka caafimaad badan yahay xagga caafimaadka. Bariiska brown ka ah ayaa caafimaad badan marka dad badan oo bariiska caadiga aan jeclaan oo kale ama baastada burka laga sameeyay aan jeclaan oo kale ayaa loo sameeyay. Wayna ka nafaqo badan tahay oo xagga nafaqada marka la fiirsho waxaa nafaqo badan brown rice ka. Marka maadaama uu ka nafaqo badan yahay burka cad saas looga soo sameeyay iyada laftigeeda mar labaad. Waana gluten free hadduu qofku ma aragta oo glutenka xasaasiye ku qabo kale iyadana way fiican tahay. Waana organic iyo vegan dadka oo xitaa vegetarian ka oo cuntooyinka kale xitaa cuni karaan. Marka insha Allah waxyaabo badan ay free ka tahay oo mataqaana qofkii rabo kale wuu tijaabi karaa insha Allah. Karinteeduna wax saas u dhib badan ma aha, waa sida tan caadiga ah laakiin way adag tahay maadaama bariis laga sameeyay oo mataqaana sida bariiska kale yara adag tahay soo xoogaa cabaar dabka in loo daayo noqonaysa. Baastooyinka burka aan laga sameyn inta badan karintooda way dhib badan tahay. Noocyo badan ay jiraan oo baastooyin ah kuwa qudaar laga sameeyo oo hadda sida digirta kale laga sameeyo. Kuwa sida baradhada kale laga sameeyo. Laakiin waxa waaye midan hadda maadaama bariis laga sameeyay xoogaa tii caadiga ahayd way ka sii adag tahay. Marka cabaar ila kariyo noqonay insha Allah hadda waxaan sameynaa waa karinaynaa hadii Ilaahay idmo. Marmar ay waxaan ku bedelanaa baastada cad. Baastada cad waa cunaa laakiin aan dhib kuma qabno. Laakiin tan marmar ku darsanaa. Sidoo kale waxay u wanaagsan tahay dadka miisaanka iska dhimaya. Cuntooyinka brown ka hadday burka tahay, hadday baastada tahay, hadday bariiska tahay aad looga mahadiyay markay noqoto dadka oo raba inay cayilka iska dhimaan oo kale. Cayil ma saaraan. Marka waxa waaye haddii oo iscaateynayso cuntooyinka brown ka waa kuwa aad ugu wanaagsan iscaateynta. Insha Allah dadka taasna way u daneeyaan iyo fiitamiinadooda badan. Marka wax yar karsanoynaa ma badna waa adiga nus kiiladii markii 3 qayb loo qaybsho qayb kamid ah. Insha Allah ma jecli markii intii wax badan la karsho fridge ka la gasho sababtoo ah waa bariis waxay noqonaysaa adayga noqonaysa sida baastada kale baastada caadiga kale markaa karsato hadda fridge ka gashatid xoogaa way yara jilicsanaanay maalinta labaad laakiin tan way yara adkaanaysaa. Hadda 8 daqiiqo ku dhawaad dabka saarneed marka aad u jilicday. Insha Allah aad u sii jilicday ma fiicna laakiin jilaac hadda teeda waxa waaye iska sida loogu talagalay. Soo miiranaynaa marka waxa ku dareynaa hadda waa saliidda qumbaha saliid nooc carabta ku darsan kartaa laakiin qumbaha iskaga darsadaa because qumbaha jecelahay laakiin olive leaf kan hadda haysto ku darsadaa wax dhiba ma lahan. Insha Allah saas ay ku soo baxday brown saas inay teema laga dareemayo marka waa brown oo marka karisid qofka arka ma isdhahay baastada brown rice laga sameeyay laakiin marka oo bacda ku jirto ama ceerinka taaba zaaid ay brown u tahay waxa isleeda baastada si madoobaha rabtaa laakiin markii la karsho way dhaqmaysaa xoogaa.